Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada cashirkeennii ugu horeeyey our bootcamp 2019 to 2020 insha allahu tacaala. Sidaan hore ugu soo hadlayba introductionkeennii in classka markaan joognay ama classka dhexdiisa waxaan baranayna waxaa weeye full stack web developer, full stack web development inagoo isticmaalayna luuqadan ama Microsoft.NET framework. luuqada back-endiga aan u isticmaalayno waa C#, front-endiga waxaan u isticmaalaynaa HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, jQuery, and then database ahaana waxaan u isticmaalaynaa baan nidhi Microsoft SQL Server ama T-SQL. Full stack marka la leeyahay sidaan kasoo sheekaynayba waa qof yaqaana saddexda qaybood ama saddexda meelood ee website-ka laga develop gareeyo ama laga sameeyo. Waa front-endigii oo wixii ay customer-ku arkayeen, back-endigii oo logigii iyo maxaan ku dhahdaa shaqadii ugu adkayda, iyo database-kii oo meeshii uu wax website-ku ku kaydsanayay. Maanta marka waxaan sameynaynaa cashirkeena ugu horeeyay oo ah inaan dhisano portfolio-dan ugu horeeyay, website yar oo khafiif ah oo aad isku xayeysiinaysid oo maxaan ku dhahdaa dadka ku baraya dadka inaad tahay software developer cusub oo kusoo biiray saaxada software developerada, magacaada, waxa aad qabatid, projectyada aad ka shaqaysid, iyo contact informationkaada, iyo skillskaad baranaysid, iyo code samples wax yar oo sample ahoo codekaad qorto ah ayaan ku xayeysiin doonaa insha allah. Marka sidan u ekaanayaa website-ku, haddaad aragtiin sidan u ekaanayaa. Korkaa hore number 1 waxaan ku calaamadiyey waxaa la dhahaa menu. Intaa kore hire me, code samples, intaas waxaa la dhahaa menu. Number 2 waxaan dhawaa h, intan waa header, waa headerkeennii ama sawirkeennii iyo loogadii lahaa. Halkan saddexaad ee hoose waa main, waa meeshii mainka ahayd ee wax ku qori lahayn. Halkan hoose waa footer, waa footer ka hadlay copyright iyo in inagu calaamadan iyo loogadan iyo designka inagu aan iska leenahay caddeynayay sidaan dadku u xadin ama aysan u copy garaysanin. Marka insha allahu tacaala website kalaan dhisaynaa, so aan bilowna insha allahu tacaala. waxa ugu horeyn sameyn waxaa weeye waxaad furaysaa Visual Studio. saasaad u furaysaa Visual Studio 2019. maalinta horaan kasoo hadalay sida loo download gareeyo Visual Studio, anaa idinku shubay badankiin. insha allahu tacaala haddii loo baahan cashir gooraan ka samayn doonaa. Then waxaad dhahaysaa create new project. Alright, markaad new project dhahdo waxyaaba fara badan baa kuusoo baxaya. Ka u koreeya uma baahnin, ka labaad baan u baahanahay ASP.NET Core Web Application, kaasaad ku dhufanaysaa. Then next baad leedahay. wuxuu ku leeyahay magac u bixi. waxaad u bixinaysaa cashirkeennii hore waxaan u bixinay portfolio, kan magaca waa ka yar bedelaynaa. waxaan leynaa portfolio dash practice baad ku daraysaa, dash practice baad ku daraysaa. xaggeen ku dhigaa buu ku leeyahay, meeshan labada dhibcooda ku dhufo, saddexdaa dhibcood. ka bacdi waxaad raadisaa oo aad aadaa your local drive-kaada. ka bacdi bootcamp 2020. ka bacdi halkan aad dhigaysaa. waxba folder dooran maysid, folder cusub iyo waxba samayn maysid, selected baad dhahaysaa. asagaa dooranaya bootcamp 2020. hadhow wuxuu kuu sameynaya asagaa samayn doonaa folder cusub oo la yidhaahdo portfolio practice buu kuu samayn doonaa. create baan leenahay, waan iska sugaynaa wax yar. markaan saas samayno wuxuu ku leeyahay okay now applicationkaad dooranayso waxaad dhisi rabto waa web application baad dooratay, macnaha waa website. maxaan website-ka ma ku eber rabtaa oo aad adigu from the scratch kasoo bilaabaysid, nooceed rabtaa template, macnaha design. marka kanaan dooranaynaa mid macnaha diyaarsanna sii. calaamadan xaggana oo dhahaysa configure https oo ah website-kayga secure ka dhig, uncheck that, uma baahnin at this time. kaa ku dhufo. then waxaad dhahaysaa create. okay, waan sugaynaa. waxaan sugnaaba waa inuu marka inoo sameeyo projectigii. okay, website-kaadii baa kuu soo baxay. calaamadan ama meeshan portfolio practice-kan waa iska xayeysiis, iska cancel calaamadda yarta x-ka ku dhufo, ka bax. okay, website-keeni waa inuu diyaar insha allahu. folderkeeni wuu inoo samaysmay. haddii aad rabtid inaad ogaato folderkii inuu si sax kuugu samaysmay in kale, waxaad samaynaysaa
cashirkan magacan halkan ah portfolio practice baa dushiisa saa ugu dhufanaysaa hal mar micnaha yaad iska dul saaraysaa hal mar dhag baad ka siinaysaa hal mar calaamadan cafwan calaamadaas iconka ama calaamadaas buluuga ah dusheeda dhag ku siinaysaa ka bacdi right click baad dhahaysaa right click then waxaa kuusoo dhabay waxaan dhan waxaad ku dhufanaysaa midka u horeeya dhahaya open folder in file explorer kaasaad ku dhufanaysaa markaad ku dhufatid halkan kuusoo baxayaa waxaad arkaysaa local diskgeedii bootcamp 2020 folderka la yidhaahdo portfolio practice iyo ku kale so folderka 2020ga ku dul dhufo hal mar dhagkasi then wuxuu ku tusayaa folderadii oo dhan hadda waa kan inoo sameeyey haddaad ka ku dhufatid website ka baad galaysaa in macluumaadkiisii marka waxba hadda ku dhufan iska xidh marka haddana mar laba haddaad kan ku dhufato calaamada bluega right click open folder waan kugu celinayaa mar labaad and then bootcamp 2020 and the folderka wakaas iska xidhaysaa okay hadda waxaan bilaabaynaa marka insha allahu tacaala inaan websitekeeni design garayno websitekeeni saan ka sheekeynayba waa kan wuxuu leeyahay menu kore picture gadaal ah header iyo footer buu leeyahay so stepka ugu horeeya waxaa weeye waxaan furaynaa wuxuu ka kooban yahay 3 folder controllers websitekeenu model iyo view sida aan hore u sheegnayba full stack markaad baranaysid wuxuu ka kooban yahay 3 baan yidhi wuxuu ka kooban yahay front end back end iyo database 3 folder marka waxay kala matalayaan 3 qaybood viewgu waa front end macnaha waa wajiga hore waxaa gala html css javascript waxaasaa gala model waa database folderka wixii database ku shuqule database migrations database creations waxaasoo dhan baa gala insha allah xilligeedan u tegi doonaa kana waxaa gala controllers waa back end macnaha waa qaybtii logic isku xidhaysay database-ka iyo front endiga isku xidhay labadan isku xidhaa kan lama hadlo kan lama hadlo kaasaa u dhexeeya kan controlka u dhexeeya oo la hadalsiiya labaduba marka waxaas hadda waa cashir macnaha hordhaca insha allah markii aan MVC gaadhna cashirada 3aad ama 4aad baynu kaga sheekeyn doonaa insha allah hadda folderkan la yidhahdo view fur kan la yidhahdo shared iyo home baad ku arki doontaa folderada cusub share sii fur waxaad tegaysaa layout-kaasaad furaysaa layout-ka markaad furtid waxaana kuu soo baxay waxaa wixii Microsoft ay noo diyaarisay uma baahnin inagu waxaan uma baahnin so waxaad ku dhufanaysaa meel anywhere baad ku dhufanaysaa I don't care meeshaad ku dhufatid control A baad dhahaysaa waad wada highlight garanaysaa then delete baad dhahaysaa ama backspace waad tirtiraysaa wax dhanba control S marka save garee okay good hadda waa inuu diyaar website-ka inaan qorro so HTML ay maxaa tahay HTML waxaan nidhi sidaan cashirka uga hadlayba waa hooyada website-ka browser kasta sida Firefox iyo Internet Explorer iyo Edge iyo Google Chrome iyo Mozilla browserada internetka laga isticmaalo dhan waxa ay isticmaalaan ay website-ka ku render gareeyaan ama ay ku tusaan dadka waxaa weeyaan HTML marka haddii HTML aysan jirin waxba website kama arki kartid waxna kuma tusi karo marka website baan qori rabnaa HTML baan ka bilaabaynaa maanta okay so waxaan dhahaynaa marka calaamadan la yidhaahdo ka yar calaamatu exclamation ama calaamatu la yaab waxaad leedahay doc type doc type baad ka durkaysaa HTML oo far yaryara then calaamadii ka weyn waad ku xidhaysaa intaa maxay tahay waa codeka ugu horeeyay HTML aad qorto intaa waxaa weeyaan HTML-ka waxay kala leedahay version fara badan waxay leedahay HTML 1 2 3 4 5 hadda 5 baa la marayaa marka waxaad u sheegaysaa browserka in website-kaadu uu isticmaali doono HTML5 oo ah tii ugu dambeysay haddaadan kaa isticmaalin ma garan karo midda aad isticmaalaysid marka intaas waa intaas ka bacdi waxaan bilaabaynaa HTML-kii so waxaan dhahaynaa calaamada ka yar HTML oo qoraysa HTML then calaamada ka weyntaad ku xidhaysaa saa marka ugu xidhid automatically marka asagaa isku kaa xidhaya dhexda enter baad dhahaysaa dhexdaad ka galaysaa hal mar inta hadda aad qortay macnaha waxaa weeye hey waxaan bilaabi rabaa website cusub oo aan ku qori rabo luuqadda HTML-ka intaas weeye wax kale maaha
ka bacdi wax alla wixii website-kaada geli doona ee html ama sawira ama macluumada labadan dhexdoodu galaya meesha halkan dhexdoodu galaya marka enter dheh saa u kala fogee meeshan dhexda ku qoraysa haddaad banaanka ku qorto halkan wax ma garanayo haddaad banaanka kale ku qorto ma garanayo waa inaad dhexda kaga jirtaa labada marka waa xeradii geela ama xeradii lo'da lagu xidhan jiray oo kala weeyo html ay leedahay waxa weeye xeradaas waa xero html wixii la geliya dhexdeeda ma aanu tusi karaa wey okay now website-ku sida aan cashir ku sharaxayba wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood waa header kore iyo body iyo footer intaas ka kooban yahay so saddexdii shay ayaan hadda kala sharaxaynaa insha allahu tacaala kow headerkii baan samaynaa so waxaad haysaa calaamada ka yarta ah haddana head and then waad ku xidhisaa dhexdaad kasii gelaysaa intaa markaa samaysay banaanka ka imow kan headkan banaankiisa imow waxaad haysaa calaamada ka yar body y and then ku xidh dhexda kasii gal okay now hadda wuu ku dhammaystiran yahay html macnaha waxaa weeyaan html hore laba xabo isku dhowo header iyo laba xabo iyo body saa ujeedaba html-ku laba wey macnaha kan waxaa la dhahaa opening tag waa kii furmayay kan waxaa la dhahaa closing tag waa kii lagu xidhayay haddii kan keligii aan saa dhaho ma shaqeynayo calaamad cagaar wuxuu keliya waxbaa kaa maqan haddii aan kan sidan dhaho okay kaa kaliya daayan wuxuu keliya waxbaa kaa maqan so mar kasta xaraf kasta wuxuu leeyahay opening tag closing tag dhexdiisa wax lagu qoraa mid kastaba dhexdiisa lagu qoraa okay maadaama aan ka sheekeyno calaamada kore inay tahay xeradii intana ay dhexdi galeen kan muxuu taraa xagees maxaase la geliyaa kan muxuu taraa maxaase la geliyaa kan wuxuu taraa oo la geliyaa wax alla wixii css oo ah aan ka hadalno css waa colorinka website ku aragtay waa qurux waa color waa beautiful hadda haddaan sawirkeenu ku noqdo waarta hadda background picture baa ku jira logadana waa cagaar fontigan waa yar green text waa caddiin waxa caddiinka iyo kalarada waxaa qabto wax la yidhaahdo css marka waxa lagu wixii css iyo javascript iyo title-ka website-ka tusaale ahaan haddii aad website furtid tusaale ahaan hadda kale haddaan tago oo aan isku dayna furo apple.com look meeshaa kore maxaa kasoo halkaa maxaa ku qoran apple marta calaamadaas apple halkaa kore waa title marka title-kaasna halkaa lagu qora so waxa u horeeyan qorayna waxaa weeye inside headka dhexdiisa hadaysaa calaamadii ahayd ka yar title and then ku xidh waxaad leedahay magacaada geli so ama iska dhaa my profile or my portfolio site save dheh then calaamadan ad weli waxaad ku dhex jirtaa la soco headkaad ku dhex jirtaa banaankiisa maaha waa insidekiisa yaa inta ku qortay ka bacdi kan banaankiisa imow hoosta saa ugu tag waxaad dhahdaa marka mera tag ama kan waa idinku dheeraanaya iska dhaaf kan waa markalaan galaaskan kaga sheekeyn doona insha allahu tacala because searchiga iyo waxyaabaha la xidhiidha weye marka intaan baa maanta qoraysaa okay headka waan dhamaynay intaasuu naga kooban yahay baadhigan imaanaya marka baadhiga dhexdiisa gal baadhigu aan ka sheekeyna marka baadhiga waxaa gala kan waxaa nidhi html-ka waxaa gala css-ka javascript-ga title-ka description-ka website-kaada wuxuu ku saabsan yahay macluumaadkaasaa gala baadhiga waxaa gala wax alla wixii website-ka ka kooban yahay micnaha waa calooshii website-ka baadhigu wax alla wixii website ku saabsanaa buu hayaa micnaha tusaale ahaan haddaan ku noqdo presentationka waxaanoo dhan hadda loogadan everything aad hal ku aragto dhan wuxuu ku dhex jiraa baadhiga inside body so headkii menugii footerkii wuxuu ku jiraa baadhiga marka baadhiga wuxuu u qaybsamaa saddexdii baan kala qaybinay kow wuxuu u qaybsamaa header so waxaan leeyahay bishii yaray header oo ugu dambeyso waan ku xidhayaa caloosha ayaan kasii galayaa headkaas iyo headerka farqi baa udhexeeya headku waa website-ka madaxiisii titlekii waxaas headerkan laakiin waa calooshii waa qaybta sare ee loogada iyo menuga la geliyo ma garat okay banaankaan ka imaaday labadan banaankoodan ka imid enter baan laba jeer waxaan dhahayaa div oo ah divider then enter dheh okay good kana waxaan dhahaynaa waa main minaha waa dhexbartankii wey
haye banaan kasii imo mainkan haddana waxaan leenahay div kale macnaha shortcut baan ku tusay instead of aad qori lahayd calaamadda ka yartaa div waxaad dhahaysaa div bas dhahaysaa tab baad dhahaysaa marka computerkaada keyboardkiisa tab asaga kuu sameynaya automatically haddana dhexda ka gal kanna waa footerkii so baadigan oo kiisii hoose oo halkaa usii cararayo kiisii korna kaa yahay waxaa dhex galay saddex shay waxaa dhex galay headkii oo korkii kore websiteka u ahaa oon ku tuso waa loogadan iyo sawirkan intaasoo dhan wey intaasoo dhan iswadata iyo mainkii oo intaa cad ah iyo footerkii oo intaa gududan ah saddexdaas ayaa dhex gashay baadiga so waa head iyo main iyo footer aan calaamadeeyo marka haddii hadda aan sidan ku daayo macna ma sameynayso ma kala garan karo marka waxaa la sameeyaa comment baa lagu sameeyaa marka headka korkiisaan imaanayaa waxaan sameynayaa calaamadii ka yarka ahayd calaamatu layaab dash dash wuu isxirayaa marka cagaar buu isku bedelay waxaan dhahayaa kani waa headerka webkayga okay ka marka waan garan karaa markaan arko waan garanaya ka inuu yahay okay kanaad imaanaysaa divkan kale ee mainka headerkaas hoostiisa halkan waxaad leedahay marka wax yar ka siko calaamadii ka yartayd calaamatu layaab dash dash wuu isxirayaa kani waa mainka webkayga okay labadan waa isleeyihiin la soco isla wada socdaan kaasaan ka hadlaya waxa la gelin doono then kii u dambeeyo hoose la soco baadiga hoos buu sii jiraa html-kana hoos bay sii jirtaa kuwa ha tirtirin macnaha meeshan ha ku qorin labadan dhexdooda wax lagu qoro bale la soco halkan waa inay cidlo ahaato dadka qaar baa ku khaldamo oo kan ay soo qaadayaanoo halkaasay gelinhayaan halkan ay gelinhayaan mararka qaar saasay dhahayaan waana khalad lama ogola waxaas soo ka tirtir okay afwan waxaan tirtiri kani waa wiga tirtirmay raalli hada kani waa mainka webkayga okay webkayga then kii u hooseeyey oo ahaa muxuu ahaa footer samayn calaamatu layaab dash dash kani waa footerkii okay save control s okay hal wax baad sameynaysaa marka insha allah halkan wax waa hal wax oo insha allah cashirka dambe aan ku baran doono wuxuu qabto marka halkan oo ah kani waa mainkii divkan ama dividerkan dhexdiisa ayay waxaad ku qoraysaa calaamadda lay @signka then render RENDY render markaa qorta wuu kuusoo qori doonaa render body meeshan fiiri ku dhufa 2 jeer then waxaad dhahdaa calaamatu bracket bil baad furaysaa bil baad ku xidhaysaa render body calaamadda waxay qabato hadda ka hadli mayno waxaan ka hadlaynaa insha allahu markii la gaadho casharada MVC-ga aan ku baran doonaa amba quman marka insha allah hadda waa lagu fududeynaya don't worry okay hadda footerka maanta waxba ku qori mayno headerkaasaan ka shaqeynaynaa maanta cashirkeena si u yaraado insha allahu jumcaha soo socdaan waa dhamaystiri doonaa bahalkan websiteka insha allah so headerki maxaa gelayay bal aan dib ugu noqdo marka sawirkeeni headerka waxaa gelayay menuga kore cad iyo loogadan iyo picturekan aan gelahayay so allah mustacaan marka waxaan qorayaa hire me code samples project skills about kun waxaa la dhahaa menugu waxaa la geliyaa wax la dhaho list waa list so listiga laba nooc midna waa unordered list midna waa ordered list I will show you what I mean so waxaad dhahaysaa marka ul oo ah unordered list tab baad dhahaysaa marka tab dhahdo fiiri waxbuu asagaas sameeyey openingkii iyo closingkii buu sameeyey li oo listigan dhexda ku sameeyey li marka waxaad gelisaa dhexdeeda enter dheh li-ga dhexdiisa enter dheh waxaad dhahdaa marka a oo anchor taaga a markaad taagtidba tab dheh marka tab dhehid automatic asagaas xidhayo hrefkani waxaa weeye website-yada markaad calaamadahan menuga waa kuwan markii aad halkan joogtid saa u dulto gacan buu isku bedelaya fiiri markaa meelaha kala joogtid gacan maaha laakiin markaad dul tagtid marka lagu dhuftana page cusub buu aaday haddaan ipad ku dhufto page cusub buu aaday ipad-ka maaragta haddaan watch ku dhufto page cusub buu aadaya sidoo kale innaga waxaan sameyn waxaa weeye
menugaas marka lagu dhufto hire me inuu page aado marka lagu dhufto skills inuu page aado halka marka h reference wuxuu ku leeyahay ii sheeg page-ka aan aadi lahaa meeshan ku qor hadda ma haysano weli halka marka pounding iskaga daa content waa magaca soo waxdaysa hire me oo capital ah good intaa marka ugu dhamaaday bal control s de oo save garee okay markaan save gareysid intaadan meel kala aadin waxaad ku noqotaa hal mar homekaas kore folderkiisa fur waxaad tagtaa kan ay ku qoran tahay indexka fur hal mar wax badan baad ku arki doontaa waxaa badan oo dhan iska tirtir waxaad dhahaysaa intaa kore mooyaan intaa u koreysa mooyaan ee calaamatu qowseynka mooyaan inta kaloo dhan iska tirtir marka halkan kasoo bilow saa u jiid kor u jiid adoo haya keyboardkaada kor u jiid kor uwad calaamadda ha gaadhin dib ooga soo noqo halkaa ku jooji number 5 iska tur saa ha ahaado control s save garee marka hadda marka si aan u aragno website-keeni meeshuu marahayo waxaan ku dhufanayaa calaamadaas korka kore fiiri waa calaamad yaroo u eg raadiya la daarayo IIS baa ku qoran express ku dhufo hal mar guji markaad saa ugu dhufatid meeshan hoose waxbaa kusoo qormaya build started buu ku leeyahay cashirka manaha projectigii ama website-kii baa yaan build garaynaya oo ku diyaarinaya si aad u aragtid buu leeyahay marka Visual Studiohan wuxuu furayaa oo ku furmayaa si uu website kuu tuso browserkaada ama Internet Explorer haddaad haysatid ama maxaan ku dhahdaa Chrome anu waxaan jeclahay inuu Chrome igu furmo waan ku tusi doonaa haddii uu kugu furmo Internet Explorer ama Edge si loo bedelo marka hadda wuu soo socdaa aan bal eegna marka meeshaan wax marinayno so far okay maarta waxaa soo gal hire me korkaa kore fili my portfolio site waa titlekii aad qortay weye look meeshaa kore so haddaan ku noqdo halkaa kore kan iska xidh kan indexkaas calaamadda x-ka ku dhufo iska xidh layoutkan ku jiraaye kor haddaa ugu noqoto maarata my portfolio site bal site ka tir oo portfolio u daa keligeed saa u tir calaamadan kale ha gaadhin calaamadan bisha yar ah ha taaban control s save garee markaad save gareysid ku noqo website-kaadii refresh dhe meeshaa korna isha ku hay site-ka way tegi doontaa fiiri my portfolio bisa soo hari doonto sida my portfolio so hadda intaa inoogu daa now hire me waa hal xabo calaamadeeduna fiiri markaan ku leeyahay unordered list manaha dhibic waaye haddaan ka dhigo ordered list ilaa laba jirtaan ku leeyahay haddaan meeshan o u bedelo kii hoosena automatically wuu isbedelaya halka xabaan bedeli kii hoosena wuu isbedelay control s dheh then markaan control s dhaho ku noqo kan refresh dheh sida number 1 buu isku bedelay annaga marka waxaan rabnaa kii horaan rabnaa ol shi marka ult baan rabnaa ul okay eltanna waa listigii marka listiye fara badan baan u baahnay marka listigan closing taggiisa u dambeeya banaankiisa ku dhufo enter dheh li dheh calaamad yareed li ku xidh enter dheh dhexda ka geli tab dheh waxaad dhahdaa muxuu ahaa hadda code samples project so waxaan dhahaynaa capital code samples okay banaankeeda imow calaamadan labaad remember space u dhexaysay li-yadan iyo isku dhegin si aad ugu wareerin lu-dan iska fogee oo saa iskaga fogee marka fiiri heerarkii kore kiisi kale waa kaas ul kore tiisi kale waa kaas li dhexe keedi kale waa kan tanna waa li cusub keedi kale waa kan halkan banaanka haddana li kale aan ku samaysanayaa li enter baan dhexdan ka galay a oo anchor taaga dhexdan kasii galay waxaan ku bedelayaa kan muxuu ahaa projects prga projects haddana li ka banaankiisaan imaanaya li anchor tag tab waxaan dhahayaa marka scales I think that's what it is scales midka u dambeeya noo haray li-gan banaankiisa li dhexda kasii gal anchor tag tab
and then waxaan dhahay about save dheh control s. good. marka waxaad samaysay headerkii yaan dhamaynay. so kani waa header kow, header baa qortay, ul baa qorto, unordered list ah, listigii baad remember listii keligeed gooni ma istaagto, waxay always dhexda kaga jirtaa ul oo ah ama ol bay dhexda kaga jirtaa. listigu waa child, macnaha waa ilmo, usha ka weyn, macnaha markaad wax list gareyn kartid waa inaad kow aad sheegtid ma unordered list ba mise waa ordered list oo 1 2 3 4 ah. markii aad mid dooratid dhexda marka listi gelinaysaa list 1 list 2 list 3 list 4 si ay kugu list garayso. okay, now back to kan aan iska xidho horta way dhawayaaba abalkan iska xidh. back to your browser, refresh dheh. maaragtaa project 1 waxbaa noo soo baxay. haddaan u bedelo ol oo ah ordered list, waa halkaas kore ol haddaan o ka dhigo un bes ah on control s dhaho oo aan ku noqdo, remember waxaan u numberay noqonaya number 1 2 3 4 5, laakiin inagu ma rabno sidaas, we don't need that. so ud ku celi and then control s save garay. okay, so projectigeeni kow ma joogo, hadda waxaan sameynay intaa kore. inagu keeno hadda saas weeye oo waa vertical horizontal maaha. marka waxa shaqada qaban doonta ee sidaa ka dhigi doonta waxaa weeyaan horizontal ka dhigi doonta waxaa weeye css. markeeda insha allah cashirkeedan ugu tegi doonaa. hadda laakiin website-kan hadda sidan u qurux badan halkan aan ka bilaabay, sidan u egyahay hadda waa kan, sidan u qurxin yahay. insha allah hadhowto refresh dheh horta bal, hadhowto waan qurxin doonaa insha allah, arki doontaan bahalkan bahal waxaan ka saari doonaa khatar. marka cashirkeeni maanta intaasuu inoo jooga. barakallahu fiikum. waa inuu cashirkeena dambe insha allah usbuucan, wajazakum allahu khayr. isku daya cashirka inaad siduu yaa u raacdaan. mar labaad baan idinku celinaya insha allahu. waxaan dhisi doona waa portfolio website, waxaan ka shaqeynaynaa waa front endiga bes ah, back endiga iyo databaseka xilli dambe kale insha allah ayaan gaari doonaa. front endiga waxaa lagu qoraa html css javascript iyo jquery iyo bootstrap. hadda waxaan ku bilaabaynaa keliya html, thumma waxaan ku xeshiin doonaa css, kabacdi baan inta kalena mid u dul istaagi doonaa insha allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.